Asalaamu calaykum akheerta. Soo dhawaada. Dad badan maasha Allah group kusoo biiray oo casharada bilaashka markaa ka dhigay kadib. Marka akheeray ugu horreyn horta kusoo dhawaada groupka. Casharada way socdaan. Waa casharo mar walba la soo geliyo oo live u socdo waaye. Ma fahanteen akheerta? Marka si tartiib ah ugu jira waxaa fahmi weysiin iyo waxaa fahamteen iyo wax walbo insha Allah markaa koorsada dhameeyo kadib insha Allah Discord-ka idin geyn doonaa kulligiina oo meeshaas insha Allah ku wada sheekaysan doonaa oo trade-yaasha iyo falanqeyntii iyo trade-yada qaadanaya iyo wixii fiican meeshaas insha Allah iskala socon doonaa. Number 1. Number 2 dad badan waxay iska soo weydiinayaan istiraatiijigaaga nooca waaye iyo waxaas dhib ma leh. Istiraatiijigayga hadda idin sheegi doonaa. Istiraatiijigayga waxaa waaye 3 ilaa 2 istiraatiiji oo isku darsan waaye oo inaba caadi ahayn sida la iskugu daray iyo cilmiga meeshan ku yaalo. Waa support iyo resistance. Waa maqashiin amrena support iyo resistance iyo waxaa waaye price action oo la isku daray iyo waxaa waaye market structure something like that. Yes, market structure. Laakiin rari strategy iska dhigi kartiin ama saas dhib ma leh. Haddii inaad rabtid istiraatiijigaaga magac inaad u yeeshid haddaad rabtid saas aad soo fikirtaa. Marka cashirkeena maanta waxaa ku baran doonaa cashirka ugu dambeeya waxaa kusoo baranay shifty iyo EMA. waxaa ka horeeyay price action. Casharada hore in lasoo fariistid waa qasab. Meeshaan ha ka bilaaban. Meeshaan ma ka bilaabi kartid. Okay marka horta barnaamijka waxaa waaye hal mar microphone-ka ku xirnaa. Okay meeshaan waxaa baranoonu waa confluences badan la isku geeyay waaye. Okay weekly waa 10% gooni waaye. 2 waa daily isna waa 10% meesha oo aadayay directionkiisa inaad soo ogaatid. Number 3 waa 4 hour-ka 10% waa isagana. Number 4 waa EMA-ga waa 5%. Number 5 waa waxaa loo magacaabo cycle level waa 5% isagana. Number 6 waa AOI ama area of interest ama support and resistance sida u kasaysan. Resistance waa isagana 10%. wixii confluences oo loo baahan yahay dhan macnaha meeshaan idinku qor rabaa. Intaa qaadanay iyo intaan qaadanin waa kala bixin doonaa dhib ma leh. Laakiin number 7 previous structure waxa la dhaho waxaa jiro waa baran doonaa. Structure waxaa jiro 8 waxaa jiro doji candlestick ama bracket for rejection candlestick waxa la dhaho. Number 9 waa lower time frame shift waxa dhahan waa isigana 10%. Number 10 waa engulfing 10%. Okay akheerta
okay akhirta strategy-geena horta intaan oo percentage ayaa oo ka koobnaan doonaa fahanteen intaan percentage oo ka koobnaan doonaa marka waxaa jiri doono maaragtay example oo kale kuwan EMA-gan oo kale waxaa waaye saddexda time frame weekliga dailyga iyo 4 hour baa laga raadinaa psychology levelka waa 1 time frame area of interest and supportigan waa hal time frame previous structure-kan waa kan saddex time frame baa laga raadinaa kan waxaa laga raadinaa saddex time frame kan hal time frame so marka qaar waxaa jiro hal time frame laga raadinayo iyo qaar waxaa jiro saddex time frame ba laga raadinayo saddex time frame ugu muhiimsan oo la-aanteed wax shaqayn karin waa weekly daily iyo 4 hour waa akhirta 4 hour time frame meesha marka trade-ka waxaa soo fiirin doonaa dhanka ee u socdaan kor miya ama hoos waaye buy hadduu weekly yahay ama daily hadduu yahay sell 4 hour hadduu yahay buy wax dhan waa soo ogaan doonaa markaa soo ogaano kadib insha allah maaragtay qorsheyn doonaa sida trade-ka u wajihi lahayn trade-ka mar walbana waxa u wajihi doonaa meesha loo badan yahay haddii daily buy oo yahay maaragtay oo 4 hour-kana buy yahay laakiin weekly oo nagu soo horjeedo oo sell noqdo trade-kan buy u raadinaynaa ama janis oo ku buy gareynaa raadinaynaa sababtoo ah meeshaana loo batay fahamsa saddexdan waa qiimeynaya meeshii laba ka mid ah ee u badato meeshaasaa aadi doontaa ma aadi doontid dhanka kale fahamsin akhirta hadalkaas hadal nadiif miyaha maaha okay marka direction-kan aad iyo aad u muhiim u yahay intaan aanan qaadanaynaa maaragtay waxaa soo qaadanayna waxaa ka mid ah hadda direction-ka ama jihada saddexdan ugu horeysa waa soo qaadanay waxaa kale waxaa soo qaadanay EMA waa soo qaadanay EMA-gan cycle level ma soo qaadan resistance previous structure doji candleska waa soo qaadanay ama rejection candleska waxaa idinkugu soo sheegay qaybta oo candle istigaash ayaa idinkugu soo sheegay dhib male inkastoo aan kusoo celinayno ama aragtay example xitaa aan ka bixin doono marka psychology level aan maanta dhigaynaa psychology level markaa dhigno cashir ku xig wuxuu noqon doonaa support iyo resistance akhirta marka indhaha kala qaada ama maye support iyo resistance in la hormariyo waa waajib ah kadib psychology levelka macnaheedu yeelan doonaa insha allah marka cashirkan support iyo resistance ayaa ku qaadan doonaa insha allah marka weekly aa tagno support iyo resistance maxaa waaye waa saqaf maaragtay oo marketka laga soo celceliyo badanka example tusaalooyin haddaa idin siiyo support iyo resistance waa iska area oo marketka dhowr mar laga soo celceliyey okay area of interest aan u aqaanaa sababtoo ah support iyo resistance waa laba xabo laba shay labadaas ba in loo isticmaalaa raba areadan haddii kor saan loo taabanayo oo laga soo baxayo hoos resistance waaye haddii kor loo jibiyo oo kor laga taabto oo kor loo baxayo waa support haddii hoos loo jibiyo hoos loo taabto oo hoos loo baxayo waa resistance marka labadan la isku darayne aniga ahaan waxaa u okusaa ama waxaa ku magacaabaa area of interest areada xiisaha leh fahanteen marka ama waxaa usoo gaabiyaa waa arki doontiin dhowr mar ano AOI qoraayo sida usoo gaabiyo waa AOI area of interest marka areadan horta areadan waa area kor haddii loo jibiyo hoos haddii laga taabto oo buy aa ka geli kartid haddii hoos loo jibiyo kor loo taabtana aa sell ka geli kartid waa area adag waaye marka
ereyadaas iyadoo marka waxaa rabaa oo live ah inaa idin tuso oo dhowr mar ku celcelis waxaas u baahan yihiin akhaarta dhib male waan ku celcelin doonaa ku celceliska badanna insha allah waxaa ku fahmi doontiin ma fahantay tusaale ereyada marka rules ay leedahay sharciyo ma fahantan sharciyada marka inaa idin qorwaa area of interest markaa rabtid inaa ogaatid maxaa sharci u baahan tahay kow waxaa u baahan tahay 3 taabasho iyo ka badan inay meeshaas subiso ama ay ka dhacdo oo body ah body touches waxaa ka wadaa akhyaaray body touches okay body toucheska waa idin sharxi doonaa waxaa waaye akhyaarta anaka maaragtay badanka weekkan dheerka ah ma xisaabno waxaa xisaabnaa jirkan oo bodyga ah buluuga iyo guduudkaas meesha oo bodyga ah iyo bodygan kale xisaabnaa body ahaana kan u xisaabnaa inta ka xisaabnaa ma ka xisaabno weekkan weekyaashan badanka anaka ma isticmaalno oo jirka isticmaalna ma fahanteen kan jir waa body waaye kana week waaye marka akhyaarta inaa fahanteen rajeynaa arrintaas kan week waaye kanna body waaye bodygan xisaabnaa example tusaale marka suuq waxaa loo baahan yahay area of interest inuu lahaado 3 taabasho iyo ka badan oo body ah okay iyo wuxuu kale u baahan yahay maaragtay wuxuu kale u baahan yahay bes wax kale ma jiro actually bes number 1 خلاص markaa heshid body inuu yahay kadib bes wax kale uma baahnid marka weekly iyo daily waa labada time frame okay weekly iyo daily bes ayaa ka kartaa area of interest okay area of interest markaa rabtid ama boxkan support iyo resistance-ga loogu magacaabo area of interest-ga haddii aad rabtid in maaragtay aad isticmaashid waxaa u isticmaali doontaa ama aad ka sawiran doontaa dailyga iyo weeklyga bes wixii time frame-yaasha dhan ma ka isticmaali kartid ma fahanteen akhyar time frame-yaasha dhan ma ka shaqeyso maaragtay ma ka shaqeyso maaragtay support iyo resistance macnaha anaga ahaan way ka shaqeysaa laakiin anaga ahaan waxaa isticmaalnaa support iyo resistance haddii aan rabno strategigeena iyo trading inaan ku trade gareyno weeklyga iyo dailyga bes inaan ka isticmaalno okay marka tusaalooyin aa idin siiye marka hadda weeklyga waaye kan macnaha 4 hour-ka iyo weeklyga iyo maaragtay time frame-yaasha kale isku awood ma aha time frame-ka ka sareeyo oo ka awood badan yahay fahanteen dailyga area of interest-giisa iyo 4 hour-ka area of interest-giisa isku mid ma aha dailyga awood badan dailygana weeklyga sii awood badan marka weekly iyo daily bes isticmaalnaa anaka 4 hour iyo wixii ka hooseeya ma isticmaalno support iyo resistance ama area of interest ahaan akhyarta markaa trade galayno haddii kale macno ma yeelanays meesha okay marka tusaalooyin hadda aan sawiraynaa oo example marka qaab aad jirta marka loo sawiro iska sawir ma aha support iyo resistance-ga waxaa u baahan tahay example horta inaa ogaatid directionka inaa ogaatid waajib waaye okay higher high higher low higher high lower low higher high oo kan noqda kana wuxuu noqda higher low kadib waa la jabiyey mujdi waa la jabiyey lower low waa hadka marka hadda san geeskan u bixi higher low ugu dambeeyay waa la cunay taas micnaheedu waxaa waaye suuqan inuu hoos u socdo oo korna ay tahay meeshan ay tahay lower high ugu dambeeyay kana ay tahay lower low ugu dambeeyay okay so waxaa subinaynaa boxa meeshan gelinaynaa lower high ugu dambeeyay iyo lower low ugu dambeeyay okay
xariiqadeena marka waxaa ku tuuranaynaa meeshan kor u qaadayna marka saas intuu marway price kada kor aa ka raadinaynaa meel 3 mar la taabtay gadaasha gadaal ayaa gadaal meel 3 mar oo jir lagu taabtay jir saan u raadinaynaa okay okay meeshaan aa ugu macquulsan meeshaan oo sidaan boodigan iyo waxaa isku qaban doonaa kan iyo kan isku qaban doonaa saana dhahaynaa marka saan aa dhahaynaa fahantay isku bixinaynaa lineka saana dhahaynaa okay meeqa taabashaa meeshan jirto 3 taabasho kow taabasho jirkan kow taabashadan labaad iyo taabashadan saddexaad waa ujeedina malin akhar nadiif waa xitaa waxaa subi karnaa kor aa bixi karnaa waxaa subi karnaa kan meeshiisa kan aa ku bedelan karnaa taabashadan sida ujeedid kow taabasho laba taabasho 3 taabasho marka bas meeshaan hadda aa ujeedid ama area of interest-gan waa area aad iyo aad u sakuure ah oo haddii marketka uu imaado oo aan ka filan karno inuu gadaal u soo baxo ama uu hoos u laabto fahanteen marka intaa ku sugaynaa price-ka kadib sal gareyn doonaa ama salin gareyn doonaa okay lacalla marka haddii jirkan oo kor ku xirmo markaas waa la jebiyey areadan ma fahanta areadan waa la xushku dareeyey waa la jebiyey waa ka tashanaya marka area kale interest oo gadaashiisa aa sii raadinaya gadaalaa ka raadinaya marka area of interest kale ama meel kale sida ujeedid hadda area of interest kale waxaa waaye kow touch laba touch iyo 3 touch waa iskugu soo aruurin doontaa boxka iskugu soo aruurin doontaa waa kuwadan qaban doontaa like this sidaan oo kale ujeed maxaad kow touch laba touch hadda waa idin sawiri doonaa taabashada koowaad waa kana taabashada labaad waa tana taabashada saddexaad waa tana taabashada afaraadna waa tana ujeedin 3 xabo taabasho ka badan oo haystaa marka meeshaan waa meel fiican iyadana ma fahanti lacalla haddii marketkan oo soo xushmo dareeya inta weli meeshaan usii istaagi karnaa jaaniska labaad waaye waa hoosa aa kusoo tuuri karnaa ma fahanteen ahay marka inaad practice garaysiina idinkaga rabaa khayrta inaad tijaabisiin oo maaragtay sida camal ani u sawiran kartiin ma fahante tusaalooyin badan oo support iyo resistance-na waa idin soo dhigi doonaa khayrta yaa la welwelin yaa la cabsanin yaa la niyadjabin qofka niyadjabina waxaa waaye maba loogu talagelin maaragtay inuu arsaaq helo ama inuu forex arsaaq ka helo ma fahante marka wax easy ah oo fudud waaye marka khayray kulligiin waa baran kartiin waxaa idin leeyahay marka xoogga saara barashada okay tusaale marka waa soo sawiranay weekliga dailyga marka tagaynaa dailyga tagaynaa dailyga okay dailyga marka oo ujeedaa lower high lower high lower low inta marwaa meeshaas marka support iyo resistance agagaarkaas inaad ka haysid waa ma fahanta hadda touch kow touch laba touch 3 touch 4 touch meelahaas hadda wuu noqon karaa support iyo resistance laakiin ani ahaan ma geli lahayn sababtoo ah aad iyo aad wuxuu ugu dhow yahay marketkan inuu jebiyo lower high-gii oo maaragtay dailyga lower lower marka inuu jebiyo aad ugu dhow yahay kan camal ilaa isniinta iska sugaynaa markuu kan dalka cusub bilaawdo suuq markuu furmo meeshuu aado hadduu saa u jebiyo bas waa suuqan wuu isbedele baa noqday
waxaa raadinaysid maba aha sel saacadaas ka bilaabato waa buy ma fahanteen marka kan oo kale hadda insha allah marka dailyga tusaalooyin kale daily ah ayaan siin doonaa oo market kale ah ama bear kale ah okay sida ujeediin tradekan waa waxay dhahaan cryptocurrency waaye cryptocurrency head and left head right shoulder waa hoos loo jebiyey waa lasoo retest gareeyey intriga waa la furay oo socdaa marka trade khatar ah waaye waa iska cryptocurrency waa fiiriyaa laakiin ma trade gareeyo okay tusaale marka marketkan waa hadda daily waaye JBY dailygiis waaye dailygii JBY marka aan akhrino fiican u eka okay aan akhrino hadda kan JBB Canadian okay higher high higher low higher high lower low lower high fiir wujud calaamad way calaamaysan tahay meesha support iyo resistance previous structure way calaamaysaneed waa la taabtay tradekan waa qurux badan sal u dhac retest waa la drop garow okay hadda marka intaa waxay tahay lower high ugu dambeeyey intaa waxay tahay lower low ugu dambeeyey waxaa suubin doontaa marka boxkan waxaa kusoo xiranay lower high ugu dambeeyey boodiga iyo lower low ugu dambeeyey boodiga waxaa raadin doontaa marka area of interest ama meesha xiisaha badneed oo marketka ka isticmaali karta inaad sell ama buy u gasho okay tanaa marka ugu qiimo badan oo ah areadan oo maaragtay hal mar la taabtay jir ahaan one touch labo iyo saddex areadan marka area fiican oo maaragtay area of interest fiican oo dailyga waaye tan camal waxaa suubinaa marka boodigan aa soo qabanaa ilaa iyo inta soo jiidinaa ilaa iyo boodigan kale okay waxaa suubinaa marka meeshaan ku sugaa marka marketka inuu imaado sidaa aniga u salgareey ma fahanteen sida u salgareey marka area of interest saana loo sawirtaa qaabkan iyo processkana la maraa marka insha allah tusaalooyin badanna waa sii doonaa area of interestina waa saan ama support iyo resistance aa ku siisid marka waa kasaa kheerta cashirkan insha allah cashiradana waa soo badin doonaa waqti yar gudihiisna waa u duduubi doonaa insha allah marka soo dhawaada kheerta